إن waxaan jecelahay inaan ka faa'iideysto oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii aqoon ka dheeraysiiyay anoo faa'iideyso waxyaalo badan naftayda ku khalkhashay baan jecelahay inaan si fiican u fahmo kow waxaan ahay qof muslim ah oo diinta islaamka ku tirsan ku dhashay ku barbaaray aan aqoonin ilaa jadka jad inaan meel laba aanay diinteeda cid kale ka soo dhex galin waxaan ahay muwaadin degan Berbera waxaan ahay mas'uul ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka ama degmada meeshan anigu aan xukumo aan mas'uulka ka ahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala anigu wala xisaabtamayo aan isaga kaga baqo marka diinta loo eego diintu waxay ka tahay xagga ugu hooseysa taxadka ayay ka tahay marka maana khalad fahansano diinta islaamka laga ilaalinaya meeshan dawladda hoose la yiraahday lacagta ummadda lagu soo xareeyo sababta looga faa'iideyn leeyahay wax anigu aan sameeyo mooyaane wax ku iga horeeyay ku dhirideen ma jiro waxaan anigu sameeyay anigu ma dabada ka waduuna ilaahda maxaa mucaamalaha quraanka loo dhisi waayay maxaa masaajidada loo dhisi waayay maxaa masaajidada gunno loogu qori waayay sida kuwa kale loogu qoro waa wax aniga iga timaado marka waxaas wax kale kugu ahay malaha diintiiba wada ka hor imanaysaa waxaan jecelahay inaad anigana i bayaamisid bulshadana u bayaamisid lacagta aan maamulo ee ummaddu ay leedahay ee malaayiinka doolara markaan diinteena islaamka eegno waxay kaga jirtaa taxta sifir bay kaga jirtaa waxaanu qabanaa wadooyin malaayiin doolar baan gelinaa waxaan dhisnaa iskuullo waxaan dhisnaa xanaanooyin waxaanu dhisnaa guryo waxaanu qabanaa bulshada adeegyo aad u ballaaran haddana markaan ku eegno isha diinta ayay halkay ka taagan tahay waxaan jecelahay inaad noo yar bayaamiso daan ka tanaasulno ka ilaalino anaguna iskaga tagnaba dee waayo hadday diinteedii ka hor imanayso sabab anaguna aanu qoodano aanu joogno aanu ka shaqeyna ma taalo marka inaad noo yar bayaamiso waxaan ka shaqeynaynaa ma diinta maxaa halkan hoose ka galay nimankan gaalada un bayna fahansiiyey inaan lacagta aan xaggan la gelinin in masaajidda waaweyn la dhiso miisaaniyadda anagaa maamula aniga golahaygaa maamula waxaan aan Ilaahay dartii ha loo bixiyo mudnaanta koowaad baan ka dhigi lahayn diinta islaamka marka bal waa problem haysta dalka oo dhan dawladaha hoose dalka oo dhan waxaan jecelahay Sheekh Mustafa Ilaahay ku barakeeye inaad noo waadixiso waxaan haday wax diinta islaamka hor imanayaan nahay qof ugu horeeya baan nahay xilkan iska casiilay ugana tagaya haddii waxaas diinteena imanayso ummadda islaamka oo dhan baan ballan qaadaya haddii diinta islaamka waxaan ka shaqeeyaa ka hor imanayso oo ilid ku tahay si inteeda noosha inta ay hadhaan badbaadiyo haddii kale waxaan hoos u dhigay bahashan loo qarinay diinta islaamka taxadka loo geeyay way agaasimo malaha gaara agaasimaha diintii oo qaafta kuma jira structure-ka meesha dhaqaale loo ala koodgareeyo diinta oo lagu shaqeynayo oo sida kuwa kale lagu abaabulayo kuma jirto mas'uuliyadiina aniga hayo gacanta ku haya intaas oo ku weydiinayo billahi tawfiiq mas'aladan u dambaysa ee gudoomiyuhu weydiinayo de malaana gudoomiyaha weydiiyo ku celiyo waxa iska jira horta sideedaba systemkan dawladnimada ee idaariga ah reer galbeed baynu ka soo koobiyeen ama ingiriiska ha ka tago ama dawladii shuuciga ka dambeeyay laga soo qaado ama reer galbeed baynu ka soo koobiyeen sidii ay wax u maamuli jireen baynu rabnaa inaynu wax u maamulo kuwa inoo yimaadee hay-aadka iyo gaalada iyo inta kale inoo joogtaana hadday yidhahdaan seminaaraan udisiinayna saa loo maamulo iyana tii un bay inoogu celiyaan oo inoo dhigaan iyagu waa secular governments secular states waa duwal cilmaaniya ama calmaaniya macnaheedu waxa weeyaan diin dawladdu shaqo kuma leh iyaga diin dawladdu shaqo kuma leh dawladdu waxay shaqo ku leedahay rafaahiyada mujtamaca
bulshada uun sidee nolosha loogu fududaydin karaa sidaa ogeed dee systemkoodu kaasi ku salaysan yihi laakiin innagu haddaynu muslim nahay aynu nidhi dad muslimiin aynu nahay oo dastuurka waddanka u dejisan qodobkiisa 5 uu ku qoran yahay wixii kitaab iyo sunno khilaafsani inuu mulqi yahay dee waa inay meel ku yeelataa min dowladda hoose laga bilaabo ilaa dowladdeena sare waa inay meel ku yeelataa waa wixii inoogu weynaayay aynu haysanay iminkan waxaan idin lahaa dunidu waxaa jira waxay sanka iska geliso oo cilmi la isbaro oo ah luqada waa waxa cilmiga sameeyay bay dhahay identity-ga kuma tahay qolo waliba waxay rabtaa inaad iyada u ekaato marka kooday ku dhigaysaa dee inagu ama wasaaradda waxbarasho ha ahaato ama wasaarad jaamacadeed iyo wixii ku saabsan ha ahaato ama dowlad hoose ha ahaato ama dowlad dhexe ha ahaatee identity-ga waddankani leeyahay mas-uuliyadda dee way wada saaranta dadkani siduu muslim u ahaan lahaa qofka mas-uulkii isaga dastuurkiisuna u xil saaray diintiisuna u xil saartay aakhirana waa la isweydiinayaa marka waxay u baahan tahay meeyar quri go-aamada ma gaadhe dee ciidan dhan baa la doortay soo maaha oo dee degmadu waxay leedahay dad ay soo dooratay degmada berberiin misay leedahay 13 mise 13 dee 13 kan baa laga rabaa budgetkii dowladda iyaga qorsheeya iyagaa yidhaahdaa sanadka soo socda intaana waxaa lagu bixiya intaana waxaa lagu bixiya intaana saas loo isticmaalo dee iyagaa mas-uuliyaddii diintu saarantee waa inay u qorsheeyaan cidda maamulka u joogta markaasi iyadu daily worka fulinaysaana dee waa inay raacdaayo fulisaa marka waxaan leeyahay waa xil idin saaran dhammaantiin adna aada fuliyaha ka tahay aakhirana la isweydiinayo tan waddada waa lagu weydiinaya waa ka mid cumar bin alkhataab baa laga soo naqlinaya inuu lahaa neefka xoole waddada ciraaq ku kufa ana lay weydiinaya maxaad waddada ugu tacbiidin weyday bulshada ama nolosheeda adduun ha noqoto ama nolosheeda aakhira ha noqoto ama say adduun iyo aakhiraba u fiicnaana ha noqoto cidda maamulka u haysa mas-uulka ah cidda maamulka u haysa ama central government ha noqoto ama local government ha noqoto mas-uuliyadda in waddada loo hagaajiyo xaq bay u leeyihin mas-uuliyadda kooda baahan in wax la siiyo xaq bay u leeyihin mas-uuliyadda in caafimaadkooda laga shaqeeyo xaq bay u leeyihin mas-uuliyadda diintooda in laga shaqeeyo lagu taakuleeyo xaq bay u leeyihin sida tanba ahmiyadda loo siinayo tanna waa in ahmiyad la siiya sida tanba barjadka loogu samaynayo tanna waa in barjadka loogu sameeyo ma lihin yaan waddo la samaynin waddada waa muhim ma lihin yaan dekad la qabanin dekadu waa muhim ma lihina caafimaadku waa muhim laakiin waxaan leenahay ka baahan in wax la siiyana waa muhim diintiisa in la baraana waa muhim masaajid iyo malcaamad in la dhisana waa muhim oo waddankeenna dadku inta badan marka diin la yidhaha masaajid baa laga fekeraa marka somaliland waxaa laga yaabaa qur-aankii inuu qaali noqday haddaan lacag badan bixin karin dee macalinku ilaa uu baktinaya isna waxba u baahaya ku noolaado laakiin waxyaaba sii qaali gareeya waxaa ka mid ah madraso quro waqfi ku jirta maba jirta ama way yartay macalinku gurigu kiraystay buu wax ku dhigaa oo nin kira ka sugayo dee haddii ilmo yar la yidhaahdo kirada guriga iyo macalinka wuxuu cunayay iyo wuxuu dhan ha laga wada qaado waxay ahayd dowladdeenna hoose iyo bulshaduba awqaaf inay sameeyaan ah in madaarista qur-aanka lagu dhiganaya ay sidaa in masaajidda u dhisayna inaynu u dhisno haddii macalinka la kafaalo qaadi karo in la kafaalo qaado si uu qur-aanka danyartuna u heli karto marka ninka 5 caruura dhalay ee maanta meelahan ku noole dee qur-aan iyo iskuulka maba bixin karayo hadduu beriis u soo helo ayaaba dhibi taagan tahay mas-uuliyadda marka waxaa le uun dee dadkii xilku saara waa laga yaabaa waxaynu haysanay inkastoo berberadee aadaan u tuhunno marka gobollada kale loo ego la yidhaahdo ishii dhaqaalaha fadhidaan haddana kolleyba waa yartay marka baahida bini aadamka iyo laysu egiyo waxa la hayo kolleyba baahida bini aadamka iyo waxa la hayo marka laysu ego waa yartay laakiin intaasu baynu u baahanay in la qorsheeyo oo qur-aankuna wax yeesho diintuna wax yeelato dadkuna wax yeesho dalka iyo dhulkuna wax yeesho mid walba wixii loo qaban karayay in la qabto haddii la iska daba qabto maalinba in lagu kordhiyo
rooba maalin lama wada dhisin bay gaaladu ku mahmaahaan maalin qura waxoo dhan wada hagaajin kari mayno laakiin sanadba haddaynu qorshaha meel u badinno hore waynu socon karna waa la gaari karaa marka waxaan leeyahay dee waa mas-uuliyad dadkana wada saaran intii madaxwaana gaar usii saarane dadaalka ha la dadaalo ilaahay baryadiisa iyo inuu ilaahay idin kaalmeeyana ku darsado oo ilaahay in badan barya in alla idinku kaalmeeyo sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam